بسم الله الرحمن الرحيم warkii fidsan mas'uuliyiinta caafimaadka ee ka howlgalay qasa ayaa sheegay in 4 qof ay ku dhinteen duqeyn ay ciidamada Israa'iil ay duqeeyeen marinka Kamu Abu Zalim ee ku yaala magaalada Khan Yunis ee koonfurta Qasa kuwaas oo la sheegay in ay ku jiraan dadka dhintay madaxdii marinkaasi Kamu Abu Zalim duqeyntan ayaa waxa la sheegay inay si gaar ah ugu socoto magaalada Khan Yunis kadib markii ay Falastiiniyiintu gantaala ay ku rideen amba ay ku weerareen magaalada Tel Aviv ee caasimadda waa dalka Israa'iil kaasoo ay ciidamada Israa'iil ay sheegeen in gantaaladaasi hawada ay ku burburiyeen ciidamada difaaca cirka ee Israa'iil geestagan wasaaradda gaashaandhigga ee Israa'iil ayaa sheegtay xalay leh in ay dileen 20,000 oo qof oo ka tirsan kooxaha hubaysan ee Falastiiniyiinta intii uu ka socday duqeynta dagaalada Qasa kuwaas oo mas'uuliyiinta Israa'iil ay sheegeen in la dilay intii uu dagaalkaasi ka socday Qasa warbixintan ay soo saartay xalay wasaaradda gaashaandhigga ee Israa'iil ayaa noqonaysa warbixintii ugu horeysay ee Israa'iil ka warbixiso tirada dhimashada ee Falastiiniyiinta ee hubkaasi sida talantaaliga ugu socdo wasaaradda caafimaadka ee ka howlgashay Qasa iyaduna xaqiijisay xalay in ay tiro dhimashadii ay marayso 20,000 oo qof oo Falastiiniyiina kuwaasoo la sheegay in ay ku dhinteen duqeyntaasi Israa'iil ay ka wado Qasa tan iyo intii uu dagaalkaasi ka socday iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mareykanku uu ka dhalilay maamulka Israa'iil weerarada ay ciidamadaasi ay ku hayaan marinka Qasa ee dhulka Falastiin wasiirka oo shir jaraa'id kaga hadlayay xaaladani gobolka bariga dhexe ayaa sheegay in aanay isqabanaynin ciidamadu ay weeraraan ciidamada Xamaas iyo inay ilaaliyaan dadka shacabka ah ee ku nool magaaladaasi Israa'iil awoodda ku haysato wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antonio Blinken ayaa cadeeyay in iyagu aaminsan yihiin inaanay Israa'iil kala dooran karin dagaalka ay sheegtay inay ku baabiinayso ururka Xamaas iyo yareynta dadka rayidka ee ku dhimanaya weeraradani ay labada dhinac isweydaarsanayaan Antonio Blinken ayaa sheegay in dawladda Mareykanku ka go'an tahay in ay sugto nabadda iyo ammaanka gobolka bariga kadib markii la dhameeyay khilaafka waqtiga gobolka ka jira gaar ahaan dagaalka Qasa dagaalkani ka socda marinka Qasa ayaa bilowday 7 bishii Oktoobar ee sanadkani si dhamaanaya iyadoo ay ku dhinteen 20,000 oo qof oo Falastiiniyiin ah halka ay ku dhaawacmeen 55,000 oo qof oo kale dhanka kalena qaramada midoobay ayaa qayladaan ka muujinaya xaaladda bini'aadantinimo ee deegaanka marinka Qasa ee dhulka Falastiin iyadoo lagu baaqiyay maamulka Israa'iil iyo ururka Xamaas inay xal ay ka gaadhaan dagaalkani ka socda marinka Qasa ogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ka hadlay xaaladani marinka Qasa ayaa sheegay in loo baahan yahay in loo ogolaado dadka shacabka ee ku nool marinka Qasa inay helaan gargaar bini'aadantinimo oo la gaarsiiyo maadaama ay ku goodonsan yihiin goobo kala duwan oo markaas ay duqeymo ku socdaan ay fulinayso Israa'iil waad ka dhageysanayseen radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland khiyaarta hawada nagala socotay warkayga labaadna subaxani saaka waa naga taasi tan marka ay ku kulmi doono baahinta kowda duhurnimo hadii Allah wada loo raali ka noqdo baahintii subaxnimo ay noo soo bilaabatay 6 iyo barkii subaxnimo haatan 8 iyo barkii subaxnimo ay saacadu ku sii qaysaa gabagabayeen taaganaay subaxani saaka waxa dhanka farsamada inagu sugnayd asma carab halka qaybta online-ka ama isku xidhka dhinaca social media hana inagu sugnaa ayaa la herar engineer Cabdiganay ayaa dhanka transmitterka inagu sugnaa anigoo Sacad Axmed Caydida ayaa wararka iyo qaybta xiriirinta ee subaxani saaka inagu sugnaa tan iyo kulan dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh halkani radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland